وهذا قحة هذا الصومالي قبيل بكوجوغان قبيل كان أي كوجوغان هي قحة أي كسوق حين دجانا ذودي يا لوسي مثلات مع المجال كوجوغ يا مع المجال كوجوغ يا لوسي موشينا ما كيني كران عندنا ما أفوف كران برلمان ما وريري كران لا تنعيدوا ما قرعان كران haddii uu rabo inuu laabta cid u garaacdo haada reerkooda iyo maxaan ku dhahay maamulkiisa ayar xabsiyada gal oo dawladda ka una wiil una dhaqaalaha ka cuna ana taas baa lagu jiraa anjarada una Itoobiya markii lagu xiro reerkii cunto ku keenay iyada cuntada ku karnaysa jaalasho moogta ka ka una marka ninkaasi halgamaa ku jiraa bulaahay anjarada ka dhameynaya dawladda qasnadeeda dhamay bulaahay qolada marka reer Soomaaliland qasnada dawladda inay dhameeyaan bay u yimideen بركة المرحانة جرا بركة علي يدور جرا إساق يدور استغفر الله يدور ويدي ذي مالي كدينيا بركة إساق سياسة الموتشي جرا بركة الرحم وين جرا الله تقرأ كسر روب موتى أو بركة وين سأقرن مركة إلياس أنا بركة عياشة سكان مديها يقول يسيب بركة كل حياة حياة اللي دي سأقول شاكله بركة صحافة ده جرا ما حكوا سياسة لولا ninka wariyaha ina bakaylo barakac siyaasad ninka sameeshiisi ka carray marka erayga barakac dadka tabarta daran uma ah gool sanada ismoodaysa dadka tabarta daran ee muqdisho kor daga barakac hadayada waa barakac lacag haysta ila barakac ma aha ku aan lacag haysan baradaadi baad ka kacday weey barakac marka hadalkaasi marka hadal saxab u aha boqol kitaab inuu ka daadmayso balaayo waxay ka dhacday أحمد إسلام وكل شيء لو سمرين مركو كسمايا فريستانا شالي بو كسو غبي قبردار مركو بحال لو ابترينيا نيني isugu tagaan xirtiga kore ya qabdaar joog kala ya darada marka Xasan oo Soomaali barakacna ma aha deegaan doorasho leeyahay magaalada laga soo doorto tagi kara gabadha barakaca ah ee aan tagi karin magaaladeedii ee aan ku noqon karin magaaladeedii مشاهر دولتك قسنة الدولة دمينا يسا وقرن قلوها هيسا يدا كقطر نساق ما يرجعني بسنة الصومالي ده وقوة الرجل يسكع عليا قبلها أنا وجه العسل اللي بيحنا رقك هالسلاح أعرض الله تقالم ولا تقالم قاشون بكعلك بان وبوجي إنه عراري برواقع توعي ولا إريدي oo una nin eryanin ay gabadh eryatay raganimadiisa iyo dulmacaankiisa iyo shakhsiyadiisa ay ka waxaynaysaa askari garaadalana intuu fooda ku dhuftay in $10,000 laga xaqay waxa dhacay maash askarigi bartan baa laga saaray faasha waa soone hadalkuna waa sax baajir marka yani dad baa ku oran doona soonka ilaasho soonku markuu eraygu run yahay waxa dhaway kusoo dhawow royal oo guryaha naansan ugu imow reerkana la kaalay adaa u riyaaqiye waa raas qabow royal reer lagu dhaqo ruuxdu ay ku dagi ruun hooyada iyo raaxa gabadhaada riyadoodii weeyaan halka lagu hodmee hoy laga helaa iyadoo heer sarreyso ragna soo xanaashay waa royal shirkadda dhismaha ee royal modern homes waxa ay dabaqyo mataanaha twin towers ka dhisaysaa xaafadda Parklands ee magaalada Nairobi guryahan waxay leeyihiin qolal waasac ah garoon weyn oo carruurtu ay ku ciyaarto masaajidkii jimkii supermarketkii goobtii dabaasha dugsiyadii quraanka iyo madarsadii baakinadii gawaarida waxaa sidoo kale guryaha royal ku xeeran xarumihii waxbarashada iyo caafimaadka waxaa cajiib ah in qofkii guri gadanaya aysan jirin percentage ama qiimo gaar ah oo lagu xirayo balse uu iska bixinayo wixii uu awoodo waxay faahfaahintaasi dheer kala xiriir nambarada hashada ka muuqda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kula wanaagsan daawadayaal Ramadaan mubaarak kusoo dhawaada barnaamijkeena xog waran barnaamijka qaybtan inta uu socdo hadii baha wada loo ogolaado waxaan ku falanqayn doonaa ama aan ku eegi doonaa shalay baarlamaanka Soomaaliya Jubaland baarlamaankeeda ayaa waxa ay geeyeen mooshin ay ku dalbanayeen in xayiraadda laga qaado dadka reer Jubaland ee dawladda federaalka ay dhibaatooyinka ku hayso haddaba arintaasi buuq ayaa ka dhashay xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil oo lagu naanayso xildhibaan Xasan Furimbi ayaa halkaasi waxa uu ka yiri isaga oo u jawaabayay xildhibaanada dhinaca Soomaaliland ku matala dawladda federaalka maadaama ay ka hadleen arinta mooshinka ee Jubaland geysay baarlamaanka ayaa waxa uu yiri
dad barakacyaal ama xildhibaano barakacyaalaha oo aan tagi karin deegaan doorashooda ma ahan xaqna uma laha inay ka hadlaan arrimaha Jubbaland iyo dadka aan matalo arrintaasi ayaa buuq ka dhashay iyadoo oo xildhibaano ka soo jeeda Soomaaliland ay isku dayeen inay uga canqaadaan xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil xildhibaan Firimbi ayaa isagana la sheegay inuu raaligelin arrintaas ka bixiyay laakiin buuqii dhashay wali hadal hayntiisii way taagan tahay oo warbaahinta iyo baraha bulshada way ka taagan tahay xildhibaanada Soomaaliland ku matala federaalkana aad ba arrintaasi uga hadleen haddaba arrintaasi maxaa ka jira ma yihiin xildhibaanada Soomaaliland ku matala federaalka barakacyaal مسجل حلبانا كلا وأرنتاس يجنا سوقرية أرنتاس صح ما تهي أرنتاس يعني كفر قيدنا برامج كأنت وصلنا ضيء بها وضروا قراضه صور ولا صاحب المقعد وبرهيل كعس صاحب عبد الرحمن فكارة يعني عيا فريا سجى برامج كان أفضل قيدنا أنت وصل عبد الرحمن صور رمضان مبارك رمضان مبارك واتها شلي برلمانك فدرالك Soomaaliya mooshin baa la geeyay oo xildhibaanada Jubbaland ku batala federaalka ay geeyeen kaasoo ay ku dalbanayeen in xayiraadaha laga qaado dadka Jubbaland oo ay sheegeen in dawladda federaalka ay dhibaatooyin fara badan ay ku hayso dhowr bari ka horna mooshinkaas waxaa Muqdisho garoonkeeda lagu hor istaagay oo inay Kismaayo aadan loo diiday xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo Jubbaland ka soo jeeda xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil oo loo yaqaan Xasan Firimbi ayaa ku tilmaamay xildhibaanada Soomaaliland ku batala federaalka inay yihiin barakacyaal aan tagin deegaan doorashooda iyadoo markaas ay ahayd in xildhibaanadan xagga waqooyi ka soo jeeda qaarkood ay ka hadleen arrinta mooshinka ay geeyeen iyagoo arrintaasi dhinac kale uga hadlay oo markaas ka soo horjeeday in xayiraadaha laga qaado Jubbaland balse dhow arrintaasi hadal hayn badan baa ka dhalatay sidee adiga kula muuqata hadalkaasi xildhibaan Xasan Firimbi ka soo baxay bismillaahir rahmaanir rahiim inta aan hadalka xildhibaanka gelin ummadda muslimiinta oo dhan waan salaameynaa waxaanu leenahay ilaahay kuwii uu bisha barakaysan soonkooda iyo salaadooda ka aqbal Allah inaga dhigo aamin tubta iyo mawaaqifta wanaagsanna rabbi hay nagu waafajiyo kulankii shalay baarlamaanka Soomaaliya uu yeeshay xildhibaanadu waxaa la yidhi nin walba ceesaantii ceelgeysi nin walba mooshin buu watay kuwa Jubbaland waxay wateen mooshin ah inay cunaqabataynta laga qaado dadkooda hooyooyinka umul raacaya in dhakhtar u bixi karin isu socod ku jirin iyo ileen hore waxaan u sheegnay in ciddii dawladdu wadato iyo dawladda midna aan la cunaqabatayn karin naw Kismaayo tagnay Muqdisho maynaan marin wasiiradu Kismaayo tagaan Nairobi yimaadaan madaxweynuhu Nairobi yimaadaa Kismaayo tagaa cid kasta oo dawladdu ay wadato Jubbaland diyaaradahoodu xadna male xarigna ma qabto diyaaradaha la cunaqabataynaya waa shacabkii يعني مركب waxay noqonaysaa dawladda federaalka markay iska celin weyday maamulkii ama dawladda Jubbaland iyo shacabkii cunaqabataynaysa cadaabaysa حسن در هذا حجوجي نيروبي ما أدري حجوجي مقدشو cunaqabatayn isaga ma saar xildhibaanada dhan waa sida nin marka uu wiil askari uu ku garaada doonto mooyaane isu socodka xildhibaanada siyaasiyiinta madaxweynayaasha wariyaasha saxaafad cidna lama xiri karo ku diyaarad jin raaca ku diyaarad jaan raaca ku toosaba raaca maayarkii hadda magaalada Kismaayo wuxuu joogaa Nairobi Muqdishona ma marin lamana xiri karo lamana qaban karo maxaa markay diyaaradda maayarka uu saaran yahay loo celin kari waayay hooyooyinka iyo umulaha iyo dhakhaatiirta Hindiya kuwa u socdayna baarlamaanku maalin aan la kulana Kismaayo waxay noo sheegeen 37 ruux ku dhawaad inay u dhimatay kiis caafimaad oo bilantiisa dhacday intaas oo fiisa caafimaad 73 fiisa caafimaad inay gubatay oo waqtigeedii ay ka gubatay kadib markii cunaqabatayntan ay dhacday cunaqabatayntii ugu xumayd ba shacabkii saaran taasay wateen qolada kale ee reer Somaliland Ilyas Bedel Gaboose hal soo daayay qoliya wati qoliya wax kale wateen qolaba wax way wateen isaantii ceelka inta baa midol baleer waxaan dul istaagayaa qoliyaha reer Somaliland aan ku horeynaya qoliyaha reer Somaliland dawladda federaalka soo dhaxmartay iyaga oo aan meeshaaba meel ayna ka unsan jirin haday ka unsato meel ay ka guban jirin ka gubataa baa leeyahay waxay u soo dhaxmartay inay geeyaan mooshinka Ilyas oo Ilyas laabta u garaacdaan maxaa marka qoliyahan tarwaaye senator Ilyas oo senatorna uu ka baxayba madaxweynihii isugu caana shubay baarlamaan ma ahaba senator ma ahaba
senatarnimadii uu ka tegey ninkii warlord buu noqday warlord markuu noqdana isagaa jabhad abuurtay oo dagaal dalbaday isagaa intuu isku caanashubay madaxweyne aan ahay oo xilkayga iyo senatarnimadeedii waxayga iyo muqdisho iska joogay isagaa ka tegey isagaa tuuray cid raadin kartana ma laha islaan hargeysa ka timidna ma raadin karto oo mana qaylin karto xasan awood ha ku soo fur hadduu tabar leh awood ha ku soo daayo xasan marka nin kasta oo maxaan ku dhahaayay dembi ka gala Jubbaland ba ama sii dayn ama xiri ama waxay cid kale loo soo marin maayo qolyaha reer Somaliland markaan ku sii socdo waxaad moodaa hadalkooda markaad fiiriso inay wakiil ka yihiin oo ay qaranka lagu hayaan oo ay jamhuuriyaddii iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland inay ku joogaan meesha ay ismoodaan oo Muuse dagaalka u soo diray waxaad moodaa markii gobolada waqooyi ama Somaliland laga hadlo inay si laabta u soo garaacanayaan laakiin soo matalaad soo iyagu ma matalaan xagga ayaan loo galan laakiin xaggan federaalka markii la joogo soo iyagu ma kuma matalaan Somaliland ma matalaan maxay matalaan marka iyagu waxay matalaan waa dad qax ah waa dad Soomaaliyeed qabiil bay ku joogaan qabiilkan ay ku joogaan iyo qaxa ay ka soo qaxeen deegaanadoodii yaa loo siiyay matalaad maalma magaalo ku joog ah maalma magaalo ku joog yaa loo siiyay emotion ma keeni karaan cidna ma afuufi karaan baarlamaanna ma wareerin karaan laabtan cid uma garaacan karaan haddii uu rabo inuu laabta cid u garaacdo ha aad reerkooda iyo maxaan ku dhahay maamulkiisa hada xildhibaanada kale ka duwan yihiin marka Faraton baa lagu yiri ma taqaanaa Salman Gaal inuu haba jecel ninkii ku yiri Faraton muxuu ahaa odaygii Faraton hana u qaylin orad buu reerkii u tagay raac waa runtii Soomaalida garan waxay runtii ku tahay ninku meel bi matalaad ku leeyahay meeshu matalaada ku lahaa waa inuu mabdi'iyan uga soo go'a isagoo laakiin mabdi'iyan uga soo go'in oo mabaadi'da Somaliland ee gooni-goosadka aaminsan inuu haddana baarlamaan jamhuuriyadeed baan ka mushahar qaadan dhaho waa qalad hadduu baarlamaanka jamhuuriyadda ku soo biiro Somaliland xaq iyo kab iyo xarkeed oo sababtooda baadil ha u arko ciidamada ha geliyo ha weeraro ha qabto oo deegaankiisa uu barakaca ka aha ha qabsado haddii uuna qabsanaynin uu rabo inay tagto de inay godanaba inay go'do uu rabay moogta inay godanin inay go'do uu rabay koonfurna inuu laga hayo rabay waa isku mid ninna duurka uu ka hagardaamaynaya ninna gudaha uu ka hagardaamaynaya hadda laakiin ma dadka waa xildhibaanne maxay ku kala duwan yihiin ninka reer Somaliland isba xildhibaan maxaa la dhahaa firi soo wakiil ma soo deegaan iyo dad wakiil kama aaway deegaanka dadka wakiil ka yahay way midka deegaankiisa midka koonfurba jooga ee deegaankiisa shabaab u haysteen tay kale la dooran karin ee waxa doorashadiisa ay meel kale ka dhacday isaga laftigiisa wuxuu kaga duwan yahay kuwan xagga aan tay karin kaasi shabaab aan taageersanahay malaha ilaahay way ugu wala soo eriyay taagay kuwa ma yahay shabaab aan taageersanahay Somaliland ma taageersanay wili Somaliland taageersan shabaab taageersan marka maya nin walba cadow baa soo qixiyay Soomaaliya taasi ka midaysan yihiin nin walba cadow baa soo qixiyay ninka diinsoor ka soo qaxay cadow baa haysta hal igula duulo hal ila qabto hal ila dagaalamo hal ila xoreeyo leeyahay waana garti waa barakac siyaasadeed waa run kan laakiin ka yimid waqooyi ee laabta waqooyi u garaacanaya deegaankaygii dad iga soo kiciye ma laha ee waxa weeyaan qarankii baa soo diray yiri ka soo dhaqaalaha meeshaas fiiri nin Oromo waa la xidhay oo jabadii Oromada ka mid ah qaliyo oo leef ku yiri maxaad la dagaalantaan oo digta la haysaan markaas yireen dawaan wadankan xoreynayna markaas yiri war wadanku isaga burburi waxba xabadna isku dhameeynin ayar xabsiyada gal oo dawladda ka una wiil una dhaqaalaha ka cuna ana saas baa lagu jiraa anjarada una Itoobiya markii lagu xidho reerkii cunto ku keenay iyada cuntada ku karnaysa jaalasho moogta ka ka una marka ninkaasi halgamaan ku jiraa bulaahay anjarada ka dhameynaya dawladda qasnadeeda dhameyn bulaahay qolada marka reer Somaliland qasnada dawladda inay dhameeyaan bay u yimideen iyagu dhaqaale ahaan reer Somaliland way fikireen waa inay si walba la dagaalamaan qarankii Soomaaliya qolay soo direenayeen orday xildhibaan noqdo orday ra'iisul wasaare ku xigeen noqdo qolyahaas waa sirdoon dhex jooga gobolada waqooyi waana niman qaranka cunaya hadday run yihiin marka waxa uu taramiya qaranka hadday run yihiin baltalaha keenan Somaliland lagu soo celinayo baltalaha keenan Somaliland lagu qabanayo lagu weerarayo
bal talaha keenan gobolada waqooyi dowladda federaalka gacanta loogu soo gelinayo ma ogola hada tirada warbaanta Soomaaliland ku duulo iyaga ku diidi hada tirada warbaanta Soomaaliland iyaga ogolaynba maxay kala duwan yihiin cirro marka ma cirrana Muqdisho loogu diidayaa hebel guleedna uu joogaa waxa ismaya oo ay hebel gobaad ma laha gobaad ma laha gobsan maxay la dhax ordaysaa meeshano ay meesha la dhax ordaysaa ma la xaasa sawir baa soo baxay Hargeysa tagtay way batay kartaa dadkani waa dad la soo diray waa dad loogu talagalay qismada dawladda oo inay cunaan dadkani marka waxa soo kordhin karaan miya wax ay soo iyaga inay maqlaata rabeen hadii wax soo kordhin karaan maxay marka Ilyas Kismaayo uga hadlayaan waa dawladda federaalka ee mushaharka siisa yaa u dhiibtay cajilad loo dhiibay ahayd oo qaldan cajiladiina waxay kala kulmeen in la isku qarxiyo la yiraahdo barakacayaasha siyaasaddu ha ka baxaan arrimahaas marka in barakacayaa iyaga lagu yiraahdo say u muuqataa isla barakac waa maxay barakac Kismaayo kor joogeed arkaysi maxay yihiin barakac dad maqasho waa muwaadin magaaladiisii ka soo qaxay oo wadanka aan ka bixin hadduu wadanka ka baxo qaxootigu noqonaya wadanka hadduu ka qaxana qaxootigu noqon hadduu wadanka dhexdiisa ku barakacana barakac buu noqonaya biyaa barakicin kara cadow waa barakicin kara maamul baa barakicin kara wax kasta barakicin kara barakacu waa inaad gurigaagii ka tagto wadankaagii dhexdiisana aad ka bixin guri kalena aad joogto dantuna kugu qasabtay haddii wadankaagii aad ka baxdo oo wadankii ay ku dhaafsan qaxooti baad noqono caalamka ilaahay baad u dhaxaysaa wadan malihid bay ka dhigan tahay ninka marka Muqdisho jooga ee al-shabaab soo eriyay ninka Muqdisho jooga ee Soomaaliland soo eriday ninka Muqdisho jooga ee Jubbaland soo eriday dhammaantood waa barakacayaan barakacal marxana jira barakacal idoora jira isaaq idoor astaghfirullah idoor weydiideen baa laga ka deynaya barakac isaaq oo siyaasadda Muqdisho jooga jira barakac raxan weyna jiro oo lafta garan ka soo carray roobo mutag oo barakac weyn saawan garan marka Ilyasna barakacayaashaas uu ka mid yahay oo gurigiisa barakac ku dhaxayay waxay la deeday isaga shaakala soo garan marka nin kasta oo barakac saxaafadeed baa jira maxaa ku siyaasadeed loo leeyahay ninka wariyaha ina bakaylo waa barakac siyaasadeed nin kasta meeshiisii ka cararay marka erayga barakac dadka tabarta daran uma ah goolsan hadday ismoodaysa dadka tabarta daran ee Muqdisho kor dagaama barakaca hadayada waa barakac lacag haysta ilaan barakac ma aha ku aan lacag haysan baradaadi baad ka kacday weey marka dadka dhafoorka dardaran baahi baa u wehelisee iyaguna waa barakac marka barakac nololeed barakac marka hadalkaasi marka hadal sax u ahaa boqol kitaab inuu ka daadmayso لكن القلب بحيه هذه صح عمر القلب بحيه حلان فريم wuxuu u bixiyay wax kasto la qoonsado walaal ka raal lahaw baadi hadana hada ku dhoo barra la dhaho oo taa barra la ima dhaho hayo way raal lahaw ma ku dhih waa inta marka macnaheedu ma inuu dambi qof galay in raal lahaw gelin dambi galay maxay tahay hadana barakacayn reerkooda tagaan isaga dad baa hadana barakacayn reerkooda ma tagaan isaga la takiisa xilibaa xasan فريم dad baa leh qaxooti baata abaha baa qaxootiya uwa baa qaxootiya adaa qaxootiya ma garanayo wax kale aad looga wado ma fahmi karo maxaa laga wada arintaas waxa weeye horta isaga iyo aabihii iyo awowgii toona dhobley mayna dhan u dhaafin waxaan ka wadaa afmadow mayna dhan u dhaafin afmadow marka ayna dhan u dhaafin qabiil ahaan yaa waxaa loo leeyahay dad Soomaali galbeed dega yaad isku isirteen waxaad arkaysay waxyaabaha lala yaabay taariikhda gale waxa kamid ah janan dhan oo jananadii dawladda Soomaaliya ka caanka kamid ah oo janan hebel chess janan hebel maxay janan hebel waa janan dawladda difaacayo asal ahaan Soomaali oo qarankii Soomaaliya kamid aabihiina inuu Soomaali noqdo waa loo diidan yahay kaar qaxooti baa haystaa luuq jeelo u jooga oo kaar qaxooti lagu siiyaa maxaa wiilku dhalay anoo aan dhalayna muwaadinka ka dhigay anigina maxaa qaxooti iga dhigay waxa la diidayaa deegaanka inaan wadanka yeesho oo ku beermo inta ka imow ninka ma jirteen ee degan Soomaali galbeed hadduu Soomaaliya yimaado ma aha qaxooti ninka hawiye ee degan Soomaali galbeed hadduu Soomaaliya yimaado ma aha qaxooti ninka marreexaan ee Soomaali galbeed degan way degan yihiin ilaan haddii uu yimaado Soomaaliya ma aha qaxooti ninka ogaadeen ee Soomaali galbeed degan haddii uu Soomaaliya yimaado maxaa qaxooti ka dhigay bal ee kii ku dhashay Soomaaliya axmedow Soomaaliya ku dhashay
weliba bari buu ku dhashay wuxuu ku koray Jubbaland buu ku koray xasan firimbi wuxuu ku dhashay meesha la yiraahdo Jubbaland abi Jubbaland buu ku dhashay maxaa kuwan qabiil ahaan uga dhigay qaxooti kuwa hadda shalay ka soo galayna ee qabiilada kala ahana Soomaali muwaadiniina ka dhigay mahdi guuleed Soomaali guuleed ma ninkii ku xigay khayr xilka ugu horeeyay wuxuu ahaa xeer ilaaliyaha degmada Jigjiga ee maxkamadda yoo ahaa institution Ethiopian u shaqeynay dhalashadiisu waa Isaaq Soomaaliya markuu yimid Ethiopian baa tahay lama dhihine wuxuu ahaa muwaadin Soomaaliyeed buu ahaa oo darajada ugu sarreysay maxaa kala fadlay marka muwaadiniinta Soomaalida waxa weeye midka kuwii wadanka u soo halgamay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ku jiro taalooyinkooda xamar ay ka taagan yihiin iyo ku laga yaababa inuusan wax taalaha xamar ku lahayn maxaa kala fadlilo oo kii taalada xamar ku lahayn loo leeyahay waa qaxooti kuwan ku lahayn loo leeyahay muwaadin aan arinta ku waxeeyo qabiil kasta oo gumaysiga la dagaalamay siiba Ingiriiskii la dagaalamay Ingiriisku wuxuu ku dhuftay shaambad xun oo in la isirtirtiraa dhul bahanta kamid ah sida loo baabeynay qabiilka kale hadda sheegayna kamid ah ogaadeen qabiilka marka waxa lagu shaambadeeyay koow meel alla meeshu joogaba in meel lagu adoonsado ay noqoto oo awoodiisa lagu wiiqo meeshu u soo gudbana in meel una saameyn iyo mudnaan iyo wix ku yeelan in la rabo taas weeye markuu Soomaaliya yimaadana ama Soomaaliya joogana in la yiraahdo waxa tahay qaxooti markii uu ku noqdo Ethiopia in la yiraahdo waxa tahay la gumaysti oo la gumaysanaya waa lagu haystaa waxan marka waa colaad waa dakana Sayid Maxamed Cabdulla Xasan galay oo Axmed Gurey galay oo maxaan ku dhahay Nasrullah galay oo Owen Alaf gashay oo gaalan cayb ah oo dakanayaashii yaa reerkan daba socdo kooda halgamay koodaan halgamaynin kulli gaalkii uu dilay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan qaankiisii ma loo haystaa koobil loo dilay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waa uu la taagay marka waxa laga jarayaa godobo hore ay geysteen gaalo u geysteen intaas laga jarayaa dhagayga ku maqlay Faroole maalintu lahaa dad badan oo Soomaali ku hadla oo Soomaali ahayn baa jira yuka wada marka Faroole reerkooda degan maxaan ku dhahay Galaadi iyo Bahashiina kolkay tagaan gaalkacay iyo Garowe waa niman Soomaali ah boo wada haya oo Soomaali ah balaa waxay ka dhacday ahmaa islaan oo ku dhashay dhuusan mareen markuu Kismaayo fadhiistana shalay buu ka soo gudbay qabridaar marka waxa loogu abtirinayaa ninay isugu tagaan xirsiga kore ya qabridaar joogi hal ayaa darada taagan marka Xasan oo Soomaali barakacna ma aha deegaan doorasho leeyahay magaalada laga soo doorto tagi karaa gabadha barakaca ah ee aan tagi karin magaaladeedii ee aan ku noqon karin magaaladeedii ee mushaar doonadka ah ee qasnada dawladda dhameynaysa ee qaranka lugaha haysa iyada ka gartan isaga ma ya muxuu ahaa yaana markuu goynin erey kolkii la fiiriyo laakiin gabadh lafskeeda waa gabadh muwaadinada Soomaaliyeed Soomaha oo xaq u leh inay Soomaaliya xildhibaan ka noqoto oo ay ka hadasho fikirkeeda iyo qaabka wax aragto haday wax dhibsatayna ay dhigi karto waxaas baan dhibsaday waxay Soomaali noqon waxay muwaadinad noqon markii Soomaaliland keento قال كنت أقول ليه Soomaalida waa wax la isku dardarsaday hadayna keenin ha raacdo maxay ku joogi ha raacdo xildhibaan gabadh kala jirtay inuu muuqaynay dabcan riqooy yahayd oo hadalka xildhibaan Xasan Fariid dhibsatay oo ku qabaamtay oo waliba ku dhufan gaadho oo ka cararay dadka qaar ay lahaayeen soonkiisa wiilashay ma ragali wasanay Soomaalida waa kuwa ragna iska celiya gabdhahan oo jilicsan waad libaaxuna dhaqankaas u leeyahay haduu la dagaalamo ula dagaalamo goosho ba ka adag adiga islaantaada ma ka adag raga tuu kula hadlana feermad kala daali sabana garan waad ninkii loo jiray garaadul wal din cunaa abu ah dilaa oo geesi markii la yiraahdo lagu waxayso waad inuu ahaa waan jeclay isaga niman marka aad uga baqay aragtay islaantiisii oo garaadkii toosiya leh oo yimaadeen baa dhahayo way toosin way ka cabsanayeen bas timkana toosin laadeen inta dirif soo taay la ku dhufatay kacbay tiri nimanka la had waad
marka nimankii baa waxay yidhaheen wargaraad see wuxuu yahay markaas yidhi anoo qaawan wax ka dayanaya mooyaan anoo rag leynaya inay arag buy waa dabdi marka aad baan ugu bogay inuu cararay oo la eryaday oo una nin eryanin ay gabadh eryatay raganimadiisa iyo dulmacaankiisa iyo shakhsiyadiisa ay ka waxaynaysaa askari garaadalana intuu fooda ku dhuftay inay $10,000 laga xaqay waxa dhacay maasha askarigii bartan baa laga saaray faasha waa soone hadalkuna waa sax maajir marka yani dad baa ku odhan doona soonka ilaasha soonku markuu eraygu run yahay waxaa dhaway askarigii meesha fooda unbaa nin xildhibaan unbaa ka saaray oo reerkooda unbaa faashad ka saaray uu bukaa unbuu yidhi 10 beri baa la kala maqnaa xasan baa gobol loo dhigtay oo kaa jaban baa la yidhi askariga wuxuu yidhi waa lal madareeyaal aniga faashad madaxa ka saaray nabarku markiiba in yar baa dhigtay ugu bogsaday iga daayay oo mar kasta oo hawsha faashada marka mashruuc weeye mar kasta oo hawshan gorgortankeeda la gelaya waxaana madaxa iga saaraysan iga daayay saakhirullahi ninka xildhibaankiisa ahaa wuxuusina hadda sheegay mar raba isna wuu jabay unbaa yidhi waraa us xaqa ku qaadnay aan lacagta ugu qaadnay waa la saaray xildhibaanadii reerka ahaa xasan faamilkiisa jifadiisa ah yaa israaco xidig iyo hebel iyo hebel iyo hebel waa loo tegay ninka hawsha inaanu bogodhayo inaanu sabeen xirno yaan rabnaa haye haddaan xildhibaanka maxaad ku sabeen xiraysaa inaad wadaan lacag $2,000 aan wadnaa askarigina siino raalli hawna dhahan waraa ridda ka baxa wiil ninkiina waa ku dhawaad 20 mise 10 ber kadib baashir way saarantay way ridda ka baxa ku yiri maxaa lacag 10,000 keen دي أمريكا مدينة 10,000 أو حلوة 10,000 أي أو طبعا لعبت مركز إنه طبعا وده يو كنتم كان اللي هذا لا بلعب هذا كلام بدل وهذا حسوسي وان شعلها طبعا بودي كنتم كسر دقيقة اللي وان شعلها أمر الوطن كل أروح هذا بالعكتي اللي وده العكتي كبدل بصور دقيقة هاي برندي بيسوون نقول السوق هاي ويفكرين أو العكتي عندي بيجي هاي الله سكدري لودي هو ياللي وأطلعت على الإسكالية وهذه أركي نكى وفول عد مدة كذب إن حصل على السلام أنا لعبت إسكالية لقوا كلاتك لا يسمع سلامه إسلا دقيقة دي نمكي وجواريد والحين كذا لصيم مقلو أمبو نكى حلبان كا كيس كذب بمسقوش الجري برق برق أو كابو بوسي بتو برتام بكرة مش لقوا فريسنا برتي ويل كفاشة كسارة أم بكرة دع oo dhiig baxiyay orday uu dhakhtarka la geelay lacagtii isagu lagu daweeyay ilaahay xaalay laf baa jabtay ma jabin maskaxdii ku furma kuma furmin xagana ka booday kama boodin waxa nafsiga la yiraahdo ma daha moogta inta aan ku jira arintaas ka dhacday marka nin garaada qaba oo askari ah inuu hoo bariiska yiraahdo oo khasaarahaas iyo halka isla gaaro oo xildhibaankiisina ku daro ilaahay uu soo legday oo intaas gabadh foodlana oo barakac siyaasadeedana uu ka carro uu ku amaanay aad buu amaanay وهذا وضع القضاء كان انت ساكوسو جوجويننا تاني كلن دنبنا ودقليو رمضان مبارك نبات قليل